السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبدو نبد ما جرتا ها aniga soo raacaysiin okay soo geli baadiyaha meel alle meeshaan u socdaa u socotiin soo maaha ma iska joogtiin gabdhooy haddii kale aniga luuqluuqyadaasaan gelaa haddaan galana yaa idin muslina adinka ma iska joogtiin saaxiibayaasha qaarkood lama dabagalo iska jooga meeshiina taladeeda waay aniga mogtahay yaa okay aan dhinacaas kale aadayaa adinka dhinaciina iska jooga maanta ma jirtaan ku dhah sheeko meel alle meeshaan u dhaqaaqo ay u soo socdaan boolo ma arki jirta hooyo ah socoto way ku soo dabagelayaan ilmahana haa had sidiiyaa noqoteen adinkana xagga dhinaca iska aada aniga dhinaceygan kala aaday haye seedin la tahay sheekadaas ma jirto maanta midba dhinaca iga fiirina waxay leedahay intee socotaa maanta maamada yes hortan wayba diidan tahayba inaan ka sikado aan sii sikadaba waxaa waa soo socotaa haye gadaasheydana waa maraysaa midaa igu ilaalinayso gadaasha midaa hore iga ilaalinayso midaa gees iga ilaalinayso haye kuwi kalena waa soo socdaan waa isla soo sheekaysateen maanta maho waxay dheen meel alle meeshay u lugayso aan dabagelaynaa haddii ilaahay yiraahdo waxaan ku jirnaa xilligii oo kuleelka jiro alxamdulilah laakiin annagaa u ooynayna mogtahay inkastoo hadda maqrib soo gelaayo halkoo saac ka bacdiba inshaa allah laakiin wixii qorax ahaydaan ku dhahay sanadkan waa laga dhargi laakiin roob badan nooma da'in alxamdulilah roob ma jiro maaho badan maya geedaha qalqalaleen beerta waa qalalaysaa waa in biyo lagu shubo laakiin alxamdulilah aan ku dhahay waqtigii barafka ilaahay naga soo bixiyey oo lagu simbirraxanayay ma jirto waxaa la dhahay mar kasta wax fiican iyo wax fiican badaa haysanin oo ku xamdisid ilaahay subxaana wa tacaala wuu kuusii saa'idinayaa kheyrka ilaahoo naga dhig kuwa ku xamdiyo wax kasta aamiin yaa rabbi adigana ilaalinaysid alxamdulilah washukrulilah saxa alxamdulilah waa inaan ku dhaho ilaa kuna isiisaa ma og tahay wehelna waa ii tahee sax wehelaa ii tahay maasha allah ilaahow wehel la-aan hana tusin aamiin yaa rabbi aamiin maanta waxaan ku qoranahay ilaan waqtigii barafkaa soo dhowey in alaabaha meelaha laga xaabiyo waayo haddii ilaahay yiraahdo dabeela intay dhacday alxamdulilaah qoryo badan soo dhaceen marka waa inaa xaafadda ka aruuriso soomaali xitaa xaafadda ma jeedido dabaa laga shidaaya haddii ilaahay yiraahdo waxaa la yidhi gurigaaga haddaad waddankaaga iyo meel kasta ka soo guurtid meel alle meeshaa joogtid maaragtid
ee gurigaaga kuu noqon kartaa maxaa jiro Soomaali haddii laga soo tegay Soomaali beeraley ahayn beerteena dooradeena digaaga dhiba horta adiga afkaaga aad qiyaasmiinay meel alle meesha joogtid ma aragtaa gurigaaga ka dhaqan kartaa dhaqankaaga aad ku heesan kartaa maasha Allah tabaarakallah taasaa beeneen hadda daba inta laga shidaayaa laakiin waa sugeynaayo haddii Ilaahay yiraahdo waqtiga ma aragtay qabowga markuu imaado wasi aruurinayna arintan si aruurinayna haddii Ilaahay yiraahdo ku bata usufan mutaqaana mujeedido ilaa kor soo aadooyo ala si badana haddii Ilaahay yiraahdo geedahan dhana ujeedido qalalaayeen soo daadanayaan waa in la soo xaabiyo mujeedido marka la soo xaabiyo halkaas lagu shubaa waqtiga qabowga markuu bilaabmo lugaha iyo gacmaha ku kakaayo moogtahay markaas waxaan ku dhahay adabka shide ay ku kululeynayaan Soomaali waxa la dhihi jiray qandac Allahu akbar wax kale walaalahay idin sheegay ma jirto xaalka meesha soo maraya doorooyinka waa kaasa digaaga waqti kuleelkii hadda naga dhamaan rabo adinka ma sha Allah ku jirtin Ilaahay idin saacidiyo yaanyada iyo waxyaalihii maaragtay beerta iyo way soo qalalooyaan way soo yaraanooyaan haa marka waa ina dhinacaas aado kana waa kii banaanka lagu dhaqaayay ujeedido soo bedesho xaalku soo bedelooyaa wax yar ah ku hara yaanyada iyo waqtigeena saas waa 4 toobil waqti kuleel 4 toobil waqti qabow xoogaa yaa laakiin weli cagaar sii haysana ma ugu jeedido marka waqtigaasaan ku jirnaa hadda soo qalqaloosaa ujeedido kuwaaniyo inay soo qalalo kalarka soo bedelo ma ujeedido soo qalalaayaan caleemadaha marka insha Allah waqtigan wixii Ilaahayna si anaga la ku xamdinaynaa wax weyn oo nasi wax weyn jabiga markasta isbedelayo barbarooniga iyo basbaaska iyo waa kaasa soo bedeleen soo qalqalaleen meelaha laakiin rajo weyn aan leenahay kuwaana hadda sii joogaan haddii Ilaahay yiraahdo ma sha Allah Soomaali waxa ugu xiisa waqti kasta nooc wax leh ku baxaya moogtahay hadda inta barbarooniga basbaaska cagaarnaa iyo waa dhamaadaan soo qalalooyaan iyagana saak hadda biyo lagu shubo galabtan waa inaan hadda biyo ku shubo sababtoo geedihii dhan ay soo bedelooy ma jeedido qalalaayaan sanadkan roobka ma jiro saan uga soo hadle alxamdulillaah meeshaanaan waraabinayaa waa idinka dhigayaa waxaan rabaa inaan idin dhaho xaalkeena iyo jawigeena anaga waa saas abaa Yaasmiin waxay soo gashaa 4 reer Soomaaliya markay u tahay iyo sabti markay reer Soomaaliya u tahay maanta waxay idin dhahay seetihiin ma la fiican yahay hawshaanaan ku jirnaa iyo qoryo aruuriskaas kaasaan ku jirnaa baryahan waa kana inta ina kaga tagay hadda igu cusubtiin subscribe gareysta fiidiyaashana fanis absiya waa maqlaysa xaalkayga waa kaasa meeshaasaan ku mashquulsanahay maanta insha Allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalaha malabkeena raadinaya waa kana Carmel Mall 221 Abay Fatima dukaankeeda aad ka helaysaa Minnesota ma sha Allah waa 221 second floor Carmel Mall